بسم الله الرحمن الرحيم barnaamijkan waa barnaamijka horumarinta kaabayaasha dugsiyada oo loola ballaaran oo bulshada la sameynaya qaabka uu u yara qaabaysan yahayna sidan weeye hordhac baan ka bixinaynaa marka horeeto hordhaca daraasaadka jihada waxbarashada iyo tababarada roadmap wax la dhaho la diyaariyay dal ahaan sidoo kale daraasaadyo kala duwan baa la sameeyey waxaa kaloo la sameeyey warbixino badan oo lasoo saaray baa iyadana jirto intaasoo dhan waxay tilmaamayaan in tayada waxbarashada ay gaartay heerkii ugu hooseeyey oo ah heer aada u adag dhibaatooyinka la tilmaamay ee tayada waxbarashada waxaa ka mid a diyaarinta iyo hirgelinta manhajkeenu ma ahayn mid xidhiir toosa la leh wax soo saarkeena iyo sidaan u dhaqano dhibaatada labaad waxaa weeye dhibaatooyinka kartida xirfadeed ee macalimiinteena kartidooda xirfadeed aynan aada u fiicnayn oo dhibaatooyin badan ka jiraan iyadana waa dhibaato kaloo la tilmaamay dugsiyadeena oo aan ahayn kuwa ku habboon baris barasho maadaamay ka maqan yihiin kaabayaal fara badan taas si looga gudbo dhibaatooyinkaas waxaa la diyaariyey barnaamijyo kala duwan oo wax lagu bedelayo oo uu xafiiska waxbarashada oo kaashanaya wasaaradda waxbarashada heer qaran si kastaba ha ahaatee sababta ay tayadooda u liidato oo aynu kor kusoo xusnay ayaa ah in dugsiyadu aanay ku habbooneyn baris barasho taasoo u baahan in dhinacyo badan laga qeybgeliyo inka badan 4,000 dugsiyo deegaankeena uu leeyahay ayaan lahayn kaabayaashii baris barasho sidaa darteed ayay ardaydu ku qasbanaadeen inay wax ku bartaan deegaan waxbarasho oo aada u liito taasi waxay saameyn taban ku yeelatay tayada waxbarashada waxaana si cad loo arkay in ardayda heer walbo aanay keeni karin aqoontii xirfadii iyo dhaqankii loo baahnaa si dhibaatadan loo saxo loogana diyaariyo xal waara waxaa la ogaaday in aada muhiim u tahay in la sameeyo abaabul bulsho iyadoo olahaas la sameynayo diiradda lagu saarayo ka qaybgalka tooska ah ee danwadaagta kala duwan ee waxbarashada abaabulka waxaa ka mid ah bulshada deegaanka heer walba dad aqoon leh oo ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa maalgashadayaal shakhsiyaad caana ururo hay-ado gaar loo leeyahay iyo kuwa dowladeeda hay-adaha horumarineed hay-ada dowladeed oo heer walba ah iyo wixii lamid ah waxaa laga maarmaana in la abuuro nidaam waara oo abaabulka waxbarashadu kusii socon karo iyadoo la horumarinayo kaabayaasha dugsiyada taasoo suurto gelinaysa ka qeyb qaadashada firfircoon sidaa darteed dukumentiga hagaya abaabulka waxbarashada ayaa loo diyaariyey si abaabulka loo maareeyo looguna fuliyo si hufan heer kasta hordhacaas haddaan ka tagno ujeedada barnaamijku waxaa weeye in la hormariyo kaabayaasha baris barasho dugsiyadeena ka jiro kaabayaashaas markaan leenahay waxaa ka mid ah biyo nadiifa in la helo musqulihii in la helo fasallo ku filan in la helo kuraas iyo miisas in la helo garoomadii ciyaaraha inay dugsiyadu yeeshaan buwaagtii in dugsiyadu yeeshaan adeega korontada maktabadaha shaybaanada iyo wixii lamid ah iyo adeegyadaas ayay ka qeyb qaadanayaan bulshada heerarkeeda kala duwan nidaam waara iyo in loo suurtageliyo bulshadu inay lahaadaan oo ay taageeraan nidaamka waxbarashada iyadoo aan loo ogolaaneyn horumarkaas iyadoo aan loo eegeynin horumarinta kaabayaasha nidaamka waxbarasho oo keliya natiijada laga filayo waa dhowr qeybood midda koowaad waa nidaamka howlgelineed ee xoogan oo hubinaya taageerada waxbarashada iyo ka qeybgalkeeda iyo taageerada qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoo guddiyo la asaasayo in nidaam xoogan lagu howlgalo talabaad waxaa weeye taageero waxbarasho oo joogto ah oo la xaqiijinayo iyo ka qeybgalka bulshada qeybaheeda kala duwan ta saddexaad kaabayaasha dugsiyadu ay yeelanayaan yaa la filayaa inay kor u kacaan muddada abaabulkan iyo howlahan lagu guda jiro qeybtan waa guddiyo la aasaasayaa jiro guddiyada la asaasayo guddiga koowaad waa guddiga hagista oo ka kooban ilaa 8 xubnood waa guddiga ugu sareeyo guddigaas wuxuu yeelanayaa 4 guddi hoosaad 4 guddi hoosaad ee kale iyagana waxay noqonayaan guddiga horumarinta kaabayaasha dugsiyada guddiga xog ururinta iyo baahinta xogta guddiga xiriirka dadweynaha iyo guddiga maaliyadda iyo saadka qaab dhismeedku heer qaran saasoo kale oga asaasnaan deegaankii gobolkii magaaladii iyo degmadii tuuladii ama xaafadihii magaalooyinka ilaa heer dugsi qaab dhismeedkaas saas u soconaya
website wasaaraddu ay diyaarisay baa jirto, xilli waajibaad la leeyahay baa jiro, diyaarinta qorshe lagu hagayo dugsiyada oo howlaha inta badan ka dhexeeya guddiyada, fagaarayaal kala duwan oo dukumiintiga lagu soo bandhigayo in la diyaariyo, tixidda liiska bahwadaagta, ogaanshaha xogta kaabayaasha horumarinta ee dugsiyada, diyaarinta iyo hirgelinta nidaamka dabagal iyo qiimeyn in bulshada laga dhigo mid horumarkeeda uu joogteeyo, lahaanshana dareento. Toddobaad walbo in heerba heerka ka sarreeya warbixintu la wadaago. Wasaaraddu waxay diyaarisay website-kaas waxaa weeye https waa subdomain ku abtirsanaya website-ka wasaaradda sip.moe.gov.et buu noqon. Website-kaas casharada dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.